حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. kolonyada aad u jeedaan waa kolonyo soo weerartay beer ku taalo degmada Kismaayo beer agteeda ah. sida aan la soconnana quraanjadu sideedaba waa mucjiso oo quraanka sida aad ka maqasheen laa yaxtimannakum oo macnaheedu ay tahay nabi Suleymaan iyo junuudiisa yaa idin jajibinin sababtoo ah quraanjadu waxay ka samaysan tahay maado sida dhaladoo kale ah oo jajabayso. marka quraanjadu waa mucjiso oo lagu sheegay quraanka suurad dhanna magac quraanjo loo bixiyay. ayaantan waxaa maqlayay waxaa soo batay wax la yiraahdo jilac oo darooga ahaan loo isticmaalo. marka su'aal baa hadana soo baxday, quraanjo ma la dili karaa? nabiga sallallahu alayhi salatu wasalaamna waxay ka mid tahay quraanjadu waxa uu sheegay in aan la dili karin afarta shay aan la dili karin oo ay ka mid tahay quraanjada, shinnida, hudhudka iyo shimbirta la dhaho asar. afartaas shay waa la nahiyay in la dilo. marka dadka daroogo isticmaalayo quraanjada yaan la dilin. quraanjadu waxaa loo dili karaa hal sabab oo keliya hadday dhibaato ku gaarsiinayso, sida hadday beer soo gasho oo beertaasayto ma aragtay ee fungus iyo wax wadato ee beertii haleynayso, markaas waa la dili karaa. ama hadday ku qaniinayso markaas waa la dili karaa. ama hadday cuntadii iyo wixii kulli ay kaasoo weerarayso kaasoo galayso waa la dili karaa. laakiin sida kale ma la ogolo in la dilo maxaa la dhahay quraanjada, shinnida, hudhudka iyo shimbirta la dhahayo asar. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.